السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولله رمضان مبارك. waxay ahayd haweeney saalixad oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala si dhab ah u cabsan jirtay. Iyagoo wadada soo marayaan waxay aragtay haweeney cunug xambaarsan. Markay aragtay runtii aad bay u murugotay, gaariga ayay u istaajisay. Waxay dhahday hor ayaan ku sii qaadaynaa ee soo dhawow gaariga soo gal. Markii gaariga ay soo gashay wiilkeeda oo xanuunsan wuxuu u waday isbitaalka ayuu u waday. wiilkeeda ayaa hadlay, hooyadiis ayuu ku dhahay hooyo macaan, daawooyinkan sabab cunay waan ka daalay, xaggii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kormaan aadi doonaa. yacni wuxuu ka wadaa goormaan dhiman doona aniga, waan ku daalay daawooyinkan sabab cabaayay. runtii islaanta saalixad ahayd way la yaabtay wiilka wuxuu leeyahay. waxay ku dhahday yaa xabiibi, wiilkaygiiyow daawooyinkan waa ku caafimaadaysaa, waxaad tala saarataa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala, caafimaad taam ayuu ku siin doonaa. runtii islaantii wiilka dhashay marwadii saalixadda ayay ku dhahday anaka maxaan nahnaa fuqara ayaan nahnaa, daawooyinka badan ma helno, mar waa helnaa marna waxaan ku gadanna ma haysano. runtii marwadii saalixadda ahayd waxay dhahday aniga ayaan isbitaalka geynaya, aniga ayaan lacagta shubaya. muddo dheer ka bacdi waxaa la soo gaaray isbitaalka ayaa la soo gaaray. marwadii saalixadda ahayd wiilkii ayay soo waday, isbitaalka ayaa la geeyay, waa la daaweeyey. markii la daaweeyey lacagtii iyada ayaa shubtay. runtii iyadoo faraxsan, waxay ku faraxsan tahay sadaqada ay baxsatay. way soo laabatay, waxay soo raaceen iyada iyo wiilkeedii. runtii wiilkii ayaa hooyadiis ku dhahay hooyo macaan, runtii hooyo kaa fiican adduunkan kuma haystii.